maanta madaxweynaha waxaa laga qaaday test mar kale waxaan u ahaa negative ummadda Soomaaliyeed iyo maxaan idhaahdaa intaas xogta madaxweynaha raadinaysayba intaasaan la wadaagayna maanta madaxweynaha testiga waa laga qaaday negative baan u ahaa sida ugu dhaqsaha badan baan dadka ula hadli doonaa una soo shaqeynaa insha Allah maadaama madaxweynaha dalka uu sareeyay COVID-19 qasiibay ilaahay si degdeg ah ayaa si nabada madaxweynaha ku caafiyo waxaana si caadi ah u wadan doona hawlihiisa shaqo ee ku aadan u adeegida qaranka isagoo raaci doona tilmaamaha caafimaadka iyo taxadarka la xiriira COVID-19 warkan waa mid farxad gelin doona dhammaan bulshada muslimiinta ah ee qalbi nadiifka ah waxaa hadda soo caafimaaday xaaladiisa caafimaadna si weyn u soo bogsaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud horeyna uu ahaa horjoogihii kooxda Damul Jadiid dalka Turkiga ayaa xalay laga soo qaaday isagoona filla Soomaaliya xalay xilli dambe la keenay waxaan kula wadaagi doonaa cadeymo la yaab leh oo ay baahiyeen kooxda sida weyn u taageerta madaxweynihii xilkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay dadku ku naaneysaan xabiibul malaayiin ama shakhsigii ay ummadu jecleed cadeymahaasi waxa ay yihiin in kooxda nabad iyo nolol oo ah kuwa ugu awoodda badan baraha bulshada ay habeen hore iyo xalay ay hawada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u mariyeen inuu caafimaado iyagoona ilaahay u baryayay taageerayaashii nabad iyo nolol ahna abid taageerayaashii ugu awoodda badnaa ee uu qof siyaasi ah yeesho tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya kadib ee nabad iyo nolol waxa ay muujiyeen kartida iyo sida ay u soo dhaweynayaan madaxweynahooda cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona xalay iyo habeen hore la kor taagnaa duco inuu ilaahayna caafiyana uga baryayay iyagoona sidoo kale uga digayay in Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi saaxiib la noqdo wadamada Imaaraadka iyo Kenya oo ay aaminsan yihiin taageerayaasha taageersan xabiibul malaayiin Farmaajo in labadaasi wadan ay Soomaaliya duulaan ku yihiin oo ay u diidan yihiin in ay Soomaaliya nasato oo lugaheeda ay ku istaagto daawade muuqaalkan iyo cadeymahan taageerayaasha nabad iyo nolol ay hawada mariyeen inta aanan kula wadaagin waxaan ka codsanayaa inaad farxadan aad nala qaybsato oo aad madaxweynaha u soo duceyso inuu ilaahay caafimaadkiisa uu si taam ah markaas u dhameystiro maadaama xalay si qarsoodi ah mar kale magaalada Muqdisho loogu soo celiyay waliba Villa Soomaaliya oo ah xarunta dalka looga arrimiyo madaxweynuhu dadka agdhow ayaa hadlay waxa ayna sheegeen in xaaladda madaxweynuhu ay soo hagaagtay ilaahayna uu aqbalay ducadii kooxda nabad iyo nolol ay hawada soo mariyeen iyo markaasi shakhsiga ugu saameynta badan siyaasadda Soomaaliya waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaguna markaasi u duceeyay inuu Xasan Sheekh Maxamuud ilaahay caafimaadkiisa siiyo ugana digay qatarta iyo dhagarta ay u maleegayaan kooxaha markaasi ka soo jeeda wadamada isku taga Imaaraadka Carabta iyo dalka Kenya inta aanan muuqaalkan oo dhameystiran guda galin fadlan muuqaalkan like la dhaca like-ta dad muuqaalkan la dhacdaan waxay ka caawinaysaa inuu muuqaalkan meel fog gaaro YouTube-kan xaqiiq TV waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan si aan mar walba xogaha aynu halkan idinkugu soo gudbinayno aynan uga caajisin isla markaana idinku wax idinka dhibi mayso subscribe-ta qaybta cas ama gaduudan hal mar aynu suulka ku wada taabanno gambaleelkana furta si muuqaalada aynu daqiiqad waliba halkan ku daabacno iyo xaaladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyihii loogu jeclaa abid Soomaaliya soo mar burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya kadib Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan halkan daqiiqad walba markaasi idinkula wadaagno aaway taageerayaashii nabad iyo nolol aaway dadkii jeclaa xabiibul malaayiinkii qulubta Soomaaliyeed markaasi wali qalbiyadooda ku nool waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal mar muuqaalkan ha sheer gareeyaan si uu meel fog u gaaro isla markaana aynu farxadda ula qaybsanno hogaamiyaha Damul Jadiid Xasan Sheekh Maxamuud oo ilaahay markaasi soo caafiyay ku mahadsanideen daawadayaal taageeradiina hogaamiyaha kooxda Damul Jadiid ahna madaxweynaha hadda talada haya ee magacaaban Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowrkii cisho ee la soo dhaafay sida aan warbixinadii hore idinkula wadaagnaba ku sugnaa dalka markaasi Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul ayaa xaaladiisu caafimaad si weyn u soo hagaagtay taasina waxa ay keentay in xalay saq dhexe dhaqaatiirta caafimaad ee dalka Turkiga ku sugan ay markaasi soo jeediyaan in madaxweynaha isbitaalka laga saaro isla markaana xaaladiisu caafimaad ay si weyn markaasi u soo hagaagtay madaxweynaha oo qaadanaya awaamirta ka soo yeertay dhaqaatiirta xaaladiisa caafimaad la tacaalaysay ayaa amray in markaasi Muqdisho lagu soo celiyo xalay saq dhexe ayaa helicopter waxa ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde halka oo uu madaxweynuhu markaasi ka soo degay diyaaradda nooceeda uu isticmaalay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa lagu sheegay diyaaradaha qumaatiga u kaca oo si qarsoodi ah xalay saqbarkii ku timaaday magaalada Muqdisho
waxaana madaxweynaha la socday tiro markaasi xubno isaga ka tirsan oo villa Soomaaliya ka howlgala. madaxweynaha ayaa xalay 7 saac oo habeenimo loo galbiyey xarunta dalka looga arrimiyo waa villa Soomaaliya, waxaana la sheegay in xaaladiisu caafimaad ay si weyn u soo hagaagtay. howlwadeennada villa Soomaaliya iyo qaybtooda warbaahinta ayaa haatan ku mashquulsan inay baahiyaan muuqaallo iyo sawirro ay ku cabirayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu caafimaadkiisii u soo laabtay isla markaana koronihii uu ka baxay. waa sida ay sheegi doonaan saacadaha soo aadanay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud caafimaadkiisa waxaa soo dedejiyey eebbaweyne ayaa u aqbalay ducadii madaxweyne farmaajo iyo jamaahiirtiisa tirada badan ay hawada u mariyeen maadaama ay la xanuunsanadeen shakhsigan Soomaaliyeed ee haatan dowladda Soomaaliya u wada meel laga yaabo in aysan ka soo bixin oo uu haadaan ku tuuro maadaama damul jadiid ay tahay koox markaasi qowleysata ah oo dhiigga iyo markaasi bulshada Soomaaliyeed ba miiranaysa. bal muuqaalkan ila daawo ilaa ay dhamaadka muuqaalkan haddii aad daawatana fadlan muuqaalkan like saar si saaxiibo badan uu gaaro una share garee saaxiibada YouTube-ka kugu wehliya si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale. YouTube-kan Xaqiiq TV subscribe saarta taa waxay idinka caawinaysaa inaad muuqaalo degdeg ah aad heshaan. qaybta cas ee guduudan subscribe hal mar aynu ku wada dhoobno idinkoo gambaleelka YouTube-kan u furanaya. waad ku mahadsantihiin dawshada muuqaalka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la waayay baan ka hadlayaa. madaxweynahayga haddaan nahay dalka Soomaaliyeed, madaxweynahayga waxaa noogu dambeysay inuu aaday imaaraadka. waxaan u sheegaynaa madaxweynahayga haddaa afduub ka haysataan noo soo daaya. madaxweynahayga noo sheega waa soo duulaynaaye. haddii kale madaxweynahayga hanala soo hadlo. waxaan u sheegayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud, madaxweyne haddii afduub lagu haysto noo soo sheeg. haddii kale waa lagu waayey, xaggee baad ka baxday madaxweyne? ma yuhuudi iyo israa'iiltii la sheegay yaa ku haysatay? madaxweynahaygii waa la annahay. dadka Soomaaliyeed maxaan ka yeelnaa? madaxweynahani baan goobanaa. ma madaxweyne cusub baan wadanka u samaysanaa? dalku waa madaxweyne la-aan. ha ahaado madaxweyne la-aane madaxweynuhu waa tegi jiray, laakiin waa macnigan waa laga warqabi jiray hawsha uu ku jiro. madaxweynuhu waa soo laaban jiray, dadka macniga xog baa laga heli jiray. laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax xoga lagama hayo. suu aaday imaaraadku wax xoga lama hayo. imaaraadku waayahan dambe dadkayga sibay u afduubduumanayeen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud hotel bay ku xirteen. midhaa waxay leeyihiin qasab nagu saxiix wax alaaliya waxaan rabno. madaxweyne xasan sheekh maxamuudow haddii madaxweyne xoog lagu haysto ila wareed hoose wax nagu soo gudbi, waa soo duulaynaa. baddaan soo tallaabaynaa. haddii kale madaxweyne meeshaad aadin noo sheeg oo soo hadal madaxweyne. yaa ilaahu lcaalam. bismillaahi raxmaani raxiim. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la waayay baan ka hadlayaa. madaxweynahayga haddaan nahay dalka Soomaaliyeed, madaxweynahayga waxaa noogu dambeysay inuu aaday imaaraadka. waxaan u sheegaynaa madaxweynahayga haddaa afduub ka haysataan noo soo daaya. madaxweynahayga noo sheega waa soo duulaynaaye. haddii kale madaxweynahayga hanala soo hadlo. waxaan u sheegayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud, madaxweyne haddii afduub lagu haysto noo soo sheeg. haddii kale waa lagu waayey, xaggee baad ka baxday madaxweyne? ma yuhuudi iyo israa'iiltii la sheegay yaa ku haysatay? madaxweynahaygii waa la annahay. dadka Soomaaliyeed maxaan ka yeelnaa? madaxweynahani baan goobanaa. ma madaxweyne cusub baan wadanka u samaysanaa? dalku waa madaxweyne la-aan. ha ahaado madaxweyne la-aane madaxweynuhu waa tegi jiray, laakiin waa macnigan waa laga warqabi jiray hawsha uu ku jiro. madaxweynuhu waa soo laaban jiray, dadka macniga xog baa laga heli jiray. laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax xoga lagama hayo. suu aaday imaaraadku wax xoga lama hayo. imaaraadku waayahan dambe dadkayga sibay u afduubduumanayeen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud hotel bay ku xirteen. midhaa waxay leeyihiin qasab nagu saxiix wax alaaliya waxaan rabno. madaxweyne xasan sheekh maxamuudow haddii madaxweyne xoog lagu haysto ila wareed hoose wax nagu soo gudbi, waa soo duulaynaa. baddaan soo tallaabaynaa. haddii kale madaxweyne meeshaad aadin noo sheeg oo soo hadal madaxweyne. yaa ilaahu lcaalam.